السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka hore dhamaantiin aad baan idin salaamayaa. marka xigta waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada barnaamijkeena caafimaad. Videogan waxaan kaga hadli doonaa xanuunka loo yaqaan suuxitaanka iyo noocyada uu kala baxo iyo waxyaabaha markaasi sababa. Inteena marka hore mowduucan uu gudgalin videogan la faahfaahsan oo dhigna soo follow garee dadkeena kale Soomaaliyeedna la sii wadaag. Hadii aan mowduucan dib ugu soo noqono marka hore waxaan isleeyahay doonaa waa maxay xanuunka suuxitaanku. Xanuunka suuxitaanku waxa weeyaan xanuun ku dhaca markaasi neerfayaasha kaasoo markaasi sababaya in unugyada warbixinaha isku gudbiya ku jira maskaxda ay markaasi si fiican warbixinta isku gudbin waayaan, taasoo markaasi ku keenaysa maskaxdu in markaasi si fiican u shaqeyn weydo khalkhal uu kaga dhaco markaasi habka ay u shaqeyso. haddaba mar walba waxay ku xiran tahay markaasi xanuunkaasi qaybta kursidu markaasi maskaxda ugu dhacayo, iyadoo markaasi laba nooc loo kala qaado. noocna uu yahay markaasi nooc maskaxda qayb kaliya kaga dhaca, noocna uu markaasi yahay nooc maskaxda oo dhan ku wada dhaca. haddaba noocan maskaxda qaybta kaga dhaca waxa loo yaqaan focal, kaasoo markaasi qofka ku kalifaya inuu markaasi noqdo qof suuxsan balse ogsoon waxa markaasi dhinacyadiisa ka dhacaya, qofkana ku kalifaya markaasi inuu noqdo qof gargariiraya. halka kan kale generationka loo yaqaano qofku uusan ogeyn wax dhinacyadiisa ka dhacaya, wax dhaqdhaqaaqana markaasi uusan haddaba waxaa jirta qayb kale markaasi iyada aura loo yaqaano, qaybtaasoo markaasi iskala weydaarinaysa xaaladii aan markaasi labadii xaaladood aan soo sheegnay oo ka dhigaysa markaasi qofku isagoo soo jeedo yacni og waxa dibadda ka dhacaya haddana uusan wax dhaqdhaqaaqa sameynaynin, halka dhanka kale isagoon ogeyn wax markaasi dibadda ama dhinacyadiisa ka dhacaya uu dhaqdhaqaaq sameynayo. haddaba tan markaasi uusan wax dhaqdhaqaaqa sameynayn balse uu ogyahay waxa dhinacyadiisa ka dhacaysa, badanaaba qofka wuxuu noqdaa qof markaasi hore uga soo kaca, halka dhanka kale markaasi isagoon waxba ogeyn haddana uu dhaqdhaqaaq sameynayo ay qofka ku keeni karta dhibaatooyin fara badan. dhibaatooyinkaas ay kamid tahay qofka markaasi inuu jirkiisa saa usoo ururiyo, markaasi uu xataa gariir ku yimaado qofka, iyo badanaaba arrinta dhacdo ah markaasi inuu qofku markaasi carabkiisa qaniino, taasoo la doonayo markaasi dadka ka agdhoway badanaaba inay ka taxadiraan. haddaba waxaa jirta waxa weeyaan qofku isagoo markaasi aan xanuunkani baahan mid maskaxdiisa ku dhacay ama mid uu waalidkii ka dhaxlay, waxaa jira waxyaabaha qaar markaasi dadku ay sameeyaan oo markaasi kalifi karta qofku inuu suuxo. waxyaabahaas waxaa kamid ah qofku inuu markaasi si joogta ama markaasi si badan uu markaasi u cabo markaasi drugska loo yaqaano khamriga, qofku markaasi inuu hurdadiisu ay aad u yaraato. haddii qofku hurdadu aad u yaraato marka qaar waxaa dhacaysa markaasi qofku isagoon ogeyn inuu markaasi wadooyinka ku suuxo. waxyaabaha kale keeni kara waxa weeyaan qofka markaasi inuu jiro dhibaatooyin fara badan oo markaasi dhanka markaasi nolosha ka haysata, taasoo markaasi qofka ku kalifta marka qaar maadaama maskaxdiisu si kala duwan u shaqeynayso ay waxaan ku leeyahay ay si joogta u shaqeynayso, qofkeena marka qaar ku kalifta inuu markaasi suuxo. haddaba adiga waxaa kugu waajibay haddii aad tahay qof markaasi xanuunkaas kaga sheegsan ama qof xanuunkaa qaba inaad mar walba dhakhtarkaaga u tagto lana tashato. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.